iyadoo dhammaan wufuudka kala socota Soomaaliya iyo Somaliland ay u baxeen wadanka Turkiga halkaasi oo la sheegay inuu ka sii soconayo wada hadalkii u socday Soomaaliya iyo Somaliland ayaa waxaan fursad ku helay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdullaahi Cumar Cammi oo ka qayb galayay maanta munaasabada lagu xusayay 1 December maalinta cudurka AIDS-ka adduunka madaxweyne ku-xigeenka waxaan weydiiyay bal sida uu u arko yama go'aanka Puntland ee la xiriira wada hadalka uga furmaya Istanbul ama Turkiga Soomaaliya iyo Somaliland wallahi waad ka warhaysaa xilligii prime minister halka yimi shirka waxyaabihii run ahaantii laga soo hadal qaaday buu ahaa qodobadii aanu ka wada hadalay dawladda federaalkana ka mid buu ahaa wuxuu yahay qodob ka mid ah oo dib loo dhigay si ay uga wada hadlaan labada dawladood qodob la qarin karayana ma aha habeenkii haddaad xusuusan tahay xafladii aynu prime minister ku soo dhaweynaynay Puntland mowqifkeedu wuxuu ahaa shirkaas haddii aan la ballaarin oo uusan noqonin shir Soomaali ay ku wada hadasho wixii ka soo baxa inuusan noqon doonin wax tamargal ah inuusan noqon doonin wax Soomaali oo dhan u yaala inuu xitaa waxaan gaaray heer aan idhaahdo wuxuu noqon doonaa ama u ekaanaya shir beeleed waxaan anigu arkaa inta sameynaysa ama dawladda federaalka ha ahaato ama Somaliland ha ahaatee waxaan arkaa shirka hal la ballaariyo hal laga dhigo shir ummadda Soomaaliyeed ee federaalka ah ay wada leedahay aayaheedana ay kaga wada tashanayso haddii wixii inta ka hooseysaaba ma noqon doono uu shir taabagala hadalka madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdullaahi Cumar Cammi ayaa waxa uu yahay kii ugu horeeyay ee Puntland ka soo baxatan iyo markii toddobaadyaddan ay soo baxeen in wadanka Turkiga ay dib uga furmayaan wada hadaladii dhex mariyay Soomaaliya iyo Somaliland Jaamac Debraani Somali Channel Garowe